بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الكوثر أيضا هو سورة مكية waxay soo degtay intuu nabigu sallallahu alayhi wasallam uu Makka joogay bay soo degtay macna tayib ayaduna waxay ka hadlaysaa nabiga sallallahu rabbi wa sallam alayhi ilaahi subhanahu wa ta'ala shay uu siiyay oo aad weyn qaali ah iyo shayga ilaahay siiyay waxa kaga aadan nabiga oo shukri ah iyo qoliyo nabiga sallallahu alayhi wasallam ka soo horjeeday oo gaala ahaa oo yaani cadaawad iyo colaad u hayay kuwa iyaga oo iyagana loo jawaabay rabbi wuxuu subhanahu wa ta'ala inna anagu a'tainaka wa nuqsinay nabi maxamed al-kawthara wabiga kawthar leeyada nuqsinay ee fasallituko li rabbika rabbiga darti utuko oo wanhar gawra oo dhuundhow li rabbika rabbiga darti u dhuundhow inna shani'aka kan ku caawinaya huwa isaga ayaa al-abtaru ku daba go'an ah ka ku caawinaya cadaawada ku haya isaga daba go'an macnaheedu waxa weeye waxaanu ku siinay nabi maxamed oo kawthar baan ku siinay kawtharku muxuu yahay kawtharka culimada tafsiirka laba tafsiir bay leeyihiin Abdullah ibn Abbas waxa ka sugan kawtharka wuxuu ku fasiray al-khayrul kathir waxaan ku siinay khayr fara badan oo aan la koobi karin sidaas ku fasiray Aisha iyo culimada la socotana waxay ku fasireen al-kawthar wa wabi khaas ah oo ilaahay nabi maxamed uu siiyay ummadiisuna ay ka cabi doonto tafsiirka Aisha ayaana xoog badan oo kawtharka nabiga fasiray sallallahu alayhi wasallam rasuulka fasiray wuxuu ku yimid حديث دورة أو كمدة حديث كأنس بن مالك صحيح مسلم كان قصة أرى وحو ليه أنس بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا في المسجد مرء النبي نلت شوقه نحن ندأ شوقه مساجد كدحديثة إذ أغفى إغفاءه يعني وحويان ثم رفع رأسه متبسما سيدي وحور دؤو كله أي النبي قال صلى الله عليه وسلم سوى ندح فديه مركز مدح كرؤسه قاضي سوى أمصونية أو قصلية مركز waxaan ku niri ma adhakaka ya rasuul allah maxaka qosli wadiga adoo qosli soo kacay maxad u qosashay markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam laqad unzilat alayya anifan suratun hadda mardow waxa la igu soo dajiyay nabigu sallallahu alayhi wasallam suurad baa la igu soo dajiyay markaas wuxuu akhriyay bismillaahir rahmaanir rahiim inna a'tainaka al-kawthara fasalli li rabbika ila suurada u dhamay markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam atadruna mal kawthar كوثر كوحو يحيى مقرانيسان كوثر كان إلهي أوليه وانكو سينين محمدو معنيه سمى قرانيسان صحابة دي بويدي مركزا وحا نريبو لعنس الله ورسوله أعلم إلهي رسولك سايقان مقرانينا أنه مركزا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير وهو حوض ترد عليه أمة يوم القيامة ونبي صلى الله عليه وسلم كوثر كوا وبيب رسولك صلى الله عليه وسلم webigaasoo rabbigay ii yaboohay webigaasoo korkiisa uu yahay khayr aad u fara badan waana darka ay ummadaydu ku aroori doonto weeye maalinta qiyaamada aaniyatuhu cadadu nujuumi fi samaa weelasha darkaas ama webiga weelashiisu samada xidigahooda ayay la egyihiin oo la tiray yihiin fayukhtalaju alcabdu minhum sida loogu aroorahayo webiga iyo darka looga cabayo ummadda nin ka mid oo dhex socda qaar dhex socda ayaa la qabanaya markaas laga celinaya darkii markaas waxa leeyahay buu rabbi innahu min ummati rabbi oo kana la celisay ummadaydi buu kamid yahay markaas rabbi wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala innaka la tadri ma ahdatha ba'dak xabaka ma ogid wixii uu gadaashaada ka keenayo dib u balaaye iyo ridda iyo kala yimid xumaan marka ummadaada kama tirsanaa la oranaya markaas dhinac loo leexsanayo laga duwaya macna xawdkiyo darkii baa laga celinay darkaasi marka nabigu sallallahu alayhi wasallam uu aayada ku fasiray maadaama tafsiirkii nabiga aan hayno ma tafsiir kale aan u baahna laana quraanka waxa lagu fasiraa quraanku isaga fasira nabiga fasira sallallahu rabbi wasallam alayhi oo ilaahay baa ku sheegay inuu quraanka cadeeyo rasuulku sallallahu alayhi wasallam hadduu isagu cadeeyo kawtharka uu yiri waa wabi ilaahay isiyo ummadaydu ay ka cabi doonto tafsiir kale oo dhawarkiisa waa iska laabayna marka nabiga tafsiirkiisa sallallahu rabbi wasallam alayhi ayaan qabsanayna kawtharku marka waa wabiga waxa soo arooray dhinacyihiisa labadiisa dhinac iyo labadiisa gabi
وتندوين لولة عرديسنا ومسكي بيه سعانها وكعديه ملبك لوكع معيه يعني واحد وبيع عجيبه حوضك إيا كوثركم ما اسكم مدبا بسوي كلا دوين ومسألة علمونا كمرميان عدي كعبتنا مركزا أون وقدام بينيس تبدأ بقو أمي ماي كوثر كاس مركز نيم محمد بالسي صلوات ربي وسلام عليه إلهي بالسي ومدي سانا الله قلت لك قال يوم ما ننت قيامة إني كعبانو إلا قيامة وحل إيمانا يدو آل له أمي وحل الله قلت لك قال مركز إنه أمدي سكعبتو كو أم بحضر تاسع ربي سبحانه وتعالى وسي كوثر كما دام اللقسي خير كاف قيمها بضن إيو وبيقى هدي اللقسي محال قرر ومرك فصلي لربك وانحر هدي إله يكون نمعي صلى نعمة إله تكشكر ذا معه شكرك محول نقول يا مركنا العبادة ستوي فصلي لربك وانحر لما عبادة مهمة على المركة كد ذلك عبادة كباري وتكشف صلاة عبادات كبدنك وعبادة أول ربك كلي أتكالي سيدا قالدا إلهي عدانا أتكالي سوك الهيالي أذكر ربك كلي أتك وانحر حولها أقل سيد قورع عيسانا ربك كلي درتي سأقل يظن وحويا وقورع حديق حولها حاج كي حولها مثلا وحوي مارتي يعني مركي عمرها حولها لك حي أضاحيدة إيو حولها عادة يعني وحوي عبادة اللو قورعي عبادة اللو قورعي ما إلهي كو قورع إلهي نقول قصة ضنك لا تنهو قورع صنم له كو قورع يعني وحوي القبر له كدو القورع عيدك لنا هولا قصد وانحر لربك ومعنى لربك وراء قدرنه ربك درتي كلي وقورع ساس برادة النبي صلى الله عليه وسلم لعنتنا إلهي هكود عدو عدي الله إذا رهي وحو قورع له وحديث كالنبي قال صلى الله عليه وسلم لأنه وحويا قورع هو من أعظم العبادات عباداتك إلهي اللي قلنا وذات شنائي الرضا اللي قلنا هذه عباداتك أقوى وين بقورع كمدي عبادة إلهي ليه هدي عدك للصيانة والشرك يقال لموت ساس برادة القبر كي وحوقله أما ولي أقله أما وذاك أقله أما تشين أقله حق إلهي لهاب وعيد كلسي وبالتالي الشرك بقرع لأن عبادة النحر هي قورع عبادة اللكلي أوليه مجعسان لقو قورعه استقانا لو لقستا قلبي قانا استقانا لو لقستا أفكنا مجعسان لقا دواقا قلبي قانا وحكا لما وقشدو عرفك وحكا لقا دواقا مركز قليس معنا ساسويا وانحرب لي وحين تهي آيات نصمرنا في سورة الأنعام قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له صلاة إذا هي الجورة عيدا هي النورش إذا هي الجيريدة إذا بإلهي باسكله عيدين ولا ما وداكت عيد ماشى سوق الكرتون لا وداكت مجر جورة عمر كتاوي وانحرب مركز واحد لي إن شانئك هو الأبتر إن شانئك كان كو عريسا وكان كاحل كنا عدو قوة مد كاسا أبتر كوحويان ومد دوقو أول ومد دوقو أن أو يعني وحوي خير كهري هي مجع كهري اللهين استقول ويحيقصوا تكتيبها لليه وضياشي ريق قريشات سيدا نكي اللي جرى العاص بن وائل أبو اللهب النبي صلوات ربي وسلام عليه السلام وكسونتهم بقى يعني وحو لها يعني ويلشي سيجو يرير بوضع انسان قبلها هو وين هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني وحوي خديجة وكالته لما ويل أفريقيا بنوض بولش لبدي ويل بيران بكل انسان إبراهيم أو ماريا بشين يسقون يران بكل انسان أفريقيا بنوض بوين هذه وفاطمة إيو زينب إيو أم كلثوم إيو رقية ما دام ويلشي أي كلمتين odayaashii markaa qoraysheed waxay yiraahdeen marba haduu sawiil lahayn waa dabago ay yahay warkiisu yaani dhimashadiisuba ku dhamaan doonaa waxba ka hari doonaan ka hari maaye laana waxay rumaysnaa abtarka waxay u yaqaaneen ninka dhinta asagoo wax wiila ka tagin sababtu abtirkiisina waa go'aya cidi ku abtirsan mayso yaani wax rag oo ka farcamay ma uu jiro abtar bay u yaqaaneen markaas waxay yiraahdeen kulli waa dabago ay yahay isaga warkiisu iska dhamaan doona dhimashadiisu aan iska sugno rabbi subhanahu wa ta'ala markaa wuxuu ku yiri inna shani'aka kan ku calaysan odayaashaas iyo wixii lamida huwa al-abtar isaga midka dabada go'an oo maxay ka daba go'ay xisaabtan kuma aha wiilal baa ii haray iyo yaani dad baa iga dambeeyay iyo farac baan leeyahay iyo war kuma ah ee abtar waxa la yiraahdaa nin
mar hadduu dhintaba adduunka wax magaca iyo wax qiimo u yaalla uusan jirin. abulahab markuu dhintay adduunka inta ka war haysaay waxa uu loo hayaa ceeb iyo dhaleecayn iyo in wax laga sheego. caas ibn waa'il sidoo kale odayaashii gaalnimada ku dhintay sidaasay wada noqdeen. baynamaa nabi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh wax wiilal amoon uma korino uma weynaaninoo uma guursanino uma dhalin, haddana maca dalika inta adduunyadu ay jirto magaciisaa la hayaa. sooma waa kan soo marnay warafacnaa laka dikraka, ilaahay baa magaciisa kor u qaaday oo intaasoo ummadoo atbaaca buu leeyahay oo ummadana oo dhan buu aabbaheed yahay nabi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh. muxuu marka waxa weeyaan ma isagaa abtara mise iyagaa abtara? iyagaa abtaroo daba go-ay oo dhammaaday oo waxba ka hadhin. magac xunna waa u yaallaa, wax u ka hadhayna ma u jira. nabi maxamed si abtar maaha macna. innaa annagaa acطaynaaka ku siinay nebi maxamedow alkawthara, webiga kawthar la yidhahda annagaa ku siinay. fasalli tuko lirabbika, sidaas daraaddeed fasalli tuko lirabbika, rabbigaa dartii u tuko. wanxar gawrac, wanxar dhuundhow. naxriga inta badan geelaa loo isticmaala, looda iyo adhiga iyo dabxi baa loo isticmaala, lakin labadu waa gawraca. leanna isku qaab looma gawraco, geela si ka gedisan ayaa loo gawracayo, yani waxa way dhuuntaa lagu dhuftaa. marka wanxartu iyada waxaa loo isticmaala gawraca geela. wanxar dhuundhow oo dhuunta ku dhufo xoolaha aad gawracaysa way lirabbika, rabbigaa dartii u gawrac, cid kaleeto meeshaa soo gelino. inna shaani'aka, midkan kuu cadhaysan ee kaa xun ee cadowga ku ah, huwa isaga ayaa alabtaru ku daba go-an ah. isagaa daba go-anoo waxba uusan khayr ka hadhin, magac iyo sharaf uusan u oolin, wax taageero oo raacsan uusan adduunka u joogin. midka daba go-aneen waxba u oolin isaga wayaan barbari subxana wa tacala, adiga ma ah. saas way macana.